waxaa halkan maanta la isugu yimi sida ka warqabtaan waxa soo dhow hadda maalin iyo laba ka harsan tahay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye shirweynihii lixaad ee xisbiga kulmiye xaweeye xisbiga maanta dalka ugu daaweyn xisbigaas waa xisbi weyn oo ballaaran markastoo xisbi siyaasi ah hawlihiisa iyo shirweynihiisa uu yimaado waxaa yimaada olole damac iyo hawlo dee axsaabta siyaasigihii ay leeyihiinoo kulmiyeba uu ka mid yahay hase ahaatee xisbiga kulmiye waa xisbi weyn oo aada u ballaaran waxaa mar walba xisbiga kulmiye hawlihiisa lagu maamulaa tala wadaag waxaa lagu maamulaa maxaanku idhaahdayey isqancin sidaa la ajligeed muddadan dambe madaxweyne ku-xigeenka waxaa isaguna yidhi waan tartamayaa oo guddoomiye ku-xigeenka afraad yidhi waan u tartamayaa wasiirka ganacsiga maxamuud sacad saajin arrintaasi hawsheedii xisbigu muddadaaba wuu ku jiray degaankiisu wuu ku jiray taageerayaashiisu way ku jireen xisbiga madaxweynuhu wuu ku jiray hoggaanka xisbiga wuu ku jiray hawshaasi si fiican baa loo soo ambaqaaday si fiican baa loo soo daadihiyey golaha wasiirada xubno ka midabaa iyaguna aad iyo aad uga shaqeeyey iyo guud ahaan golahuba arrinkaasi wuxuu ku soo ururay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan isla mara ahaantaana ka mida xubnaha hoggaanka xisbiga oo guddoomiye ku-xigeenka afraad ah oo ninkii layidhi waan kula tartamayaa ah go'aan buu qaatay xisbigiisana wuu ka aqbalay raggiisana wuu ka tala qaatay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu go'aan qaatay inuu isagu tartankaa ka tanaasulo waa go'aan dadnimo leh xisbinimo leh geesinimo leh shaqsinimo leh muujinaya haladeegiisa iyo go'aankiisa iyo tudhaalihiisa xisbiga iyo kiisa qaranka intaba madaxweyne ku-xigeenku xisbigan golihii deegaankii ugu horreeyey laga doortay buu ka mid ahaa hoggaankii xisbigee muddada dheer ee dhowr iyo 10 sannadood soo hogaaminayeyna ka mid buu ahaa wuxuu maanta dhaqaalaysanayaa waa gurigiisii iyo xisbigiisii iyo qarankiisii uu labada xilli doorasho saddexda xilli doorasho uu ka soo noqday madaxweyne ku-xigeenka aad iyo aad ayaa xisbigu uu ugu boogaadinaya anigoo ku hadlaya magaca ku-xisbiga waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxaan aad iyo aad ugu boogaadinaynaa waxaan aad iyo aad sharafteeda u huwinaynaa inuu kaalintaas mudnaanteeda iyo sharafteeda uu qaatay madaxweyne ku-xigeenku sida laasligeed baan shirkan jaraa'id maanta u qaybinaynaa isagaa shirkan jaraa'id markaa maanta ahmiyaddiisa iyo mudnaantiisa leh madaxweyne ku-xigeen waanu kuugu mahadnaqaynaa madaxdii xisbiga iyo madaxdii qaranka labadaba waad ahayd nin maalintaa madaxtinimadiisana garanaya qarankiisa iyo xisbigiisana badbaadinaya unbaa go'aan qaata